اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى bishatani waa bil aan rabno laba wax inaan helo kow in ilaahay dembigaaga dhaafo hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudown marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bisha tan oo dhan wadaaka fi kulli layla buu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey waxay yidhahdaan culammadu bisha tani waa shahrun litaghyiir gebigeedba waa sistamkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto balaan cusub inaad degto acmaal gaaraa jirta uu bishan inoo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus ee traininka lagu qaato traininada ugu culus kow de isagu waa ramadaan waa wada garanay iyada in la soomayo waa garanay waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nabi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bisha tani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadabburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa idan bisha tani waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa faham horta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu samaawaati walard ayaa adiga kula hadlaya bidaatig dadka quraanka markay akhrinayaan cid kale ka fakaraan cid kale ka fakareen adigun baa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loola hadlaya waxyaabaha bishatan oo aad ka qaban jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo muslimiinta oo faray waxa ka mid ah qiyaamul leylka taraawiixda salaada badan ee la tukanayo inaad salaadaha badsato waxyaabaha la isfaray waxa ka mid ah bishatan aadka loogu dadaalayo oo nabigu sameyn jiray tasadduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunaabaynu badina inaynu dadka wax cunsiino sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nabiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahayd ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fii ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnayd waxbixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ahaa yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furray bisha tani waa bil markaa dadka muslimiinta ah takaaful ijtimaaci isu naxariistaan faqorada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nabigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahdo samayn jiray the last days baad ku jirtaa tobankaa maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabkaa ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegayay oo ajar ka weyn uu raadinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago hadduu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa siduu xadiidka nabigu sheegayay laakiin tobankan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaah yidhi haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa la yidhi
إذن طبعا كان مالمود علائق الدنيا كلها أبو شرية وحو فسح قادنا إياه إنه أمور آخرة أو قرب بشكل شقي طبعا كان مالمود أمور آخرة أو قرب وكشقية حيابا بشان كبضنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا الدعاء إلهي بريديس ولذلك بقى آيات الدعاء ده وخاصة السنة وحيكون صارت محي في وسط آيات الصوم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي آيات كاسي كدبا ولا تباشرهن وأنت آيات قدام بيع اعتكاف كي كور رمية صومك آيات كي صومك كلنا وكور ريا إذا وحي دحدا وجرتا محي وحي دحدا وجرتا رمضانك ولذلك العلماء وحي هذا وأسطان تلماميسا خصوصية أي دعوة بريدة إلهي لدي بشنقود هيدا دبا أيها الأحبة إلهي وحين لي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كوي عذر ذاك اللسيي أيها هدنا وحل ليلي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مركي ليلي أيها هدنا وحل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أدقى عذر ذار هيستهدنا وحل وأن تصوموا صوم كايدين خير بدن هذا وحكران إنسان با إلهينا ليه سبحانه وتعالى هذا وحكران إنسان هذا أيها الأحبة وركي وحكو كوبية بشتان صاصعة إن شاء الله تعالى ديار قروقة إنه هالنقض السيدة إنه إلهي يقول نقول لهاي ربي يقول حلم لهاي آخرة يقول نقول لهاي تارجت كأنه يقوي يسينو عذاب كده وقبت بادي لهاي جنة إلهي ويديسان لهينا وقالي لهي بشتاني مركا هالنقطة دال بدني وينو كان مغضى أو فإذا فرغت فانصب إلهي طاعة سي عبادتي سيني نكود داله بالكسلام نما بدني نغم مغطي ليزنس بلا نقاطنا معها بلدتكو عاجز وان صومان يقفل بيدا نفتك سي بعضه بلا دوبا هانتي وطبابر باد قالي سايه koob iyo 10 bilood oo dambaad u sii sahay qaadanaysaa koob iyo 10 horena dambigoodaad iska maydhaysaa waa bilaad u sii sahay qaadanayso cafaariidii waaweyneed ee abaalisadii baa lagu soo deyn doonaa markay dhamaatay saad siga celin lahayd hadda training ugu sii jirta ibliisaan dib kuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waa wada dayacmaysaa saa awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay من حرم خيرها فقد حرم أما وآمن لي جبريل له نكي رمضان صوغ شوف انسلخ وأيضا ماته ولم يغفر له ولي أفكا عيد هدر نبي محمد وآمين لي هاي إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى أنت قاعد بشتن يا أصيبتك فايديسته إلهي وقل دواتين ربنا غيره صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.